wuxuu u bixi lahaa safar. Dr. Ishaan oo ah dhakhtar caan ah oo ku takhasusay qaliinada waaweyn wuxuu ka qayb gali lahaa shir oo ku qaadan lahaa abaalmarin weyn oo lagu siinayo aqoontiisa iyo waxqabadkiisa. markii hal saac ay diyaaradii hawada ku jirtay ayaa waxaa kabtankii uu sheegay in diyaaraddu khatar ku jirto sababo la xiriira cimilada ayna ku degi doonto meesha ugu dhow. markii ay soo degtay diyaaradii, Dr. Ishaan wuxuu tagay qaybta macaamiisha ee airportka. waxaa loo sheegay in meesha uu u socdo uu ku gaari karo gaari, sidaas awgeed gaari ayuu qaatay. cimilada oo sii xumaata darteed oo baraf xoog leh da'ayo ayaa goor galab ah waxa ay ku khasbanaadeen in ay tuulo yar seexdaan kadib markii la amray in aan safar la ogoleen barafka awgiis. kadibna waxa ay ku leexdeen guri waxayna ka codsadeen martigelin. waxaa soo dhaweysay qof dumar ah oo waayeel ah, waxayna u keentay shaah iyo cunto. kadibna waxa ay ku tiri meeshaas iska seexda. waxa ay tukanaysay salaad badan waxayna baryaysay Allah iyadoo leh Ilaahow baryadaada kuma khasaarin. subaxdii ayuu ku yiri maamo, waxaan aad ula yaabay deeqsinimadaada iyo akhlaaqdaada. waxaan rajeynayaa in ducadaada Allah uu aqbalo. waxa ay tiri waxaan Allah weydiistay oo dhan waan helay marka laga reebo hal arin, midaasna waxaan rajeynayaa in Allah uu uga aqbali doono. adigana waxaan kugu dardaarmayaa Allah inaad ka baqdo. waxa uu yiri midda aad Allah ka sugayso maxay tahay ducadaas? waxa ay tiri wiilkan waa agoon iyo rajo, waxaan u ahaa ayeeyo, wuu xanuunsan yahay. waxaa la yiri xanuunkiisa waxaa fahmi kara dhakhtarka Ishaan ee caalamiga ah. dhakhtarkii waa uu ooyay isagoo leh ducadaada ayaa diyaaradda fariisisay, ducadaada ayaa gaariga soo saartay oo gurigaaga keentay oo roobka barafka ah keentay. qofkii Allah rumeeyo oo ku kalsoonaado wax kasta waa uu ka kaafinayaa.